Salaamullaahi calaykum saaxiibayaal. Soo dhowaada mar kale, waa sheeko kale oo cusub. Wiilkan iyo gabadhan halkan fadhiya waa laba isqaba oo qoysa. Qisada dhex maraysa ayaa waxay tahay gabadhani waa gabadh aad u khayaamo badan, wiilkana way khiyaantaa. Gabadhan waxay la saaxiibtaa wiil kale isaga oo wiilkan qabo, wuxuuna la joogaa inta uu shaqada ku maqan yahay oo dhan. Haddaba sheekada gabadhani halkan ayay ka bilaabmi doontaa. Fadlan haddaan hore noogu soo biirin, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe-ta noo taabato oo aad nagu soo biirto. Aad baad mahadsan tahay. Wiilkii maalin maalmaha ka mid ah gabadhii wuxuu ku yidhi hadda waxaan tagayaa shaqadii. Kadib waxay ku tidhi haye iska tag shaqadaada. Kadib wiilkii aayar ayuu iska tegey ilaa iyo shaqadii ama goobtii shaqada ayuu aaday isaga oo iska daacada, halkay gabadhana tahay gabadh khayaanoolaya. Kadib markii wiilkii tegey shaqadii ee uu ku maqnaa xaggii shaqada, gabadhii waxa u yimid wiil kale oo aad u qurux badan oo iyadu ay la saaxiib tahay. Wiilkani waa wiil uuna isagu ogeyn inuu guriga yimaado, laakiin marka uu isagu maqan yahay, wiilkan ayaa guriga yimaada waxaana u yeedhatay gabadhiisa. Gabadhan waxay si daacad iskala sheekaysanaysaa wiilkan oo aad u jeceshahay. Waxay ku tidhaahdaa xilligan ma yimaado xaajigu oo waa uu iska maqan yahay ee ii kaalay. Kadib wuxuu ugu yimaadaa guriga halkaas oo ay sheekooyin aad u macaan isku wadaarsadaan. Gabadhani waa gabadh aad u khayaamo badan oo waxay khayaantaa ninkeeda. Gabadhan xataa waxay tagtaa suuqa iyadoo ku xisaabtamaysa inta uu ka maqnaan doono ninkeedu. Kadib waxa ay isku raaceen wiilkii ilaa iyo suuqii oo waxa ay geysay maqaaxi shaah. Kadib halkaas ay aad uga soo wada sheekaysteen iyadoo gabadhani aad u jecel wiilkan, wiilka kalena ku meel gaadhaysa oo keliyata. Kadib iyadu gurigii ayay ku soo noqotay iyadoo sugaysa ninkeedii. Kadib ninkeedii wuu u yimiday isagoo aad u faraxsan oo ubax u sida oo isla gabadhii keligeed ay gurigii joogtay waxaad kaga farxiso u gee. Kabacdi waa uu u yimiday wiilkii wuxuuna ku yidhi ma fiican tahay, waxayna ku tiri aad baan u fiicanahay oo waan ku raagsaday xaggee ayaad ku maqnayd. Kadib ubaxii ayuu u dhiibay. Kabacdi in yar kadib wuxuu arkay markay guriga ka baxday ubax kale oo yaalla halka fiidiyowga dushiisa. Kadib waa uu yaabay wuxuu isweydiiyey ubaxan meesha yaallay kaa soo horreeyey muxuu ahaa. Ilaa waa mid uu u keenay iyada saaxiibkeeda. Kadib su-aashii uu weydiiyey wuxuu ku yidhi gabadhahay ubaxani muxuu ahaa meesha yaalla, anigu ma aan keenin kane. Kabacdi waxay ku tidhi kan haa saaxiibada ayaa ii keentay oo maanta ila joogtay gelinkii hore. Kabacdi wuu u shakiyey wuxuuna is yidhi malaha gabadhani khiyaamo ayay wadaaye, ubaxan umay keenin gabadhii, waayo gabadh ubax ma keento gabadh. Kabacdi waa uu fikiray inta uu qolkii kala galay wuxuuna is weydiinayaa bal maxaad gabadhan ku ogaataa khayaanadeeda. Kabacdi wiilkii aad ayuu u fikiray wuxuuna is yidhi maadaama aad shaqada ku maqan tahay waxaad u baahan tahay shay kuusii ilaaliya meesha ama gaadhka kusii gala. Kabacdi wiilkii waxa uu soo kaxaystay shimbirtan. Kadib waxa uu ku ballamiyey gabadha wuxuuna yidhi halkaa adigu joog, kadibna waxaad ii sheegtaa wixii guriga soo gala iyo wixii shanqadha ee gurigaasi ka baxaya. Kadib shimbirtii way is afkarteen waxayna ku tidhi waayahay waa inoo sidaasi. Kabacdi gabadhii sidii caadada ahayd waxa u yeedhay wiilkii waxaana iskala soo fadhiisatay qolkeedii. Kabacdi shimbirtii ayaa aragtay wiilkii iyo gabadhii oo wada sheekaysanaya. Shimbirtii yaradna aad ayay u yaabtay waxayna doonaysaa saaxiibkeed inay u sheegto. Halkan ayay iskaga sheekaysanayaan wiilkii gabadhii warna uma hayaan oo isma laha shimbirtan yar ayaa wax idinka duubaysa, gabadhan khayaamadeedii halkii ay kasii wadataa weli. Kabacdi wiilkii waxa uu ka yimid shaqadii oo waxa uu ku soo noqday gurigii. Kabacdi shimbirtii ayuu u yimiday wuxuuna ku yidhi shimbir yahay maxaad maanta war haysaa. Kabacdi shimbirtii waxay ku tidhi maanta war aad u weyn ayaan kuu hayaa, gabadhaadu waa khayaanooley, waxayna u yeedhatay nin kale oo halkaa kula sheekaysanayay. Kabacdi intuu wiilkii yaabay ayuu ku yidhi ma iga hubtaa arrinkaasi oo ma hubtaa inay gabadhaydu halkaasi ay la joogtay wiil oo u yimiday wiil. Haa ayay ku tidhi. Kabacdi intuu xanaaqay ayuu fikiray wuxuuna ogaaday inay gabadhan khayaanooley tahay, laakiin ma hubo maadaama shimbirta yari ay u sheegtay. Wuxuuna ogaaday inuu shakigiisii run ahaa. Kabacdi gabadhii ayuu u yeedhay wuxuuna ku yidhi waxay saqajaannimada noocan ayaad samaynaysaa ee aad u keenaysaa wiil kale guriga waan ku ogaadee. Kabacdi gabadha waxay ku tidhi maya been bay kuu sheegaysaa shimbirtan aad leedahay waxbay ii sheegtay. Kadib wuxuu ku yidhi shimbirta yar been ma sheegi karto adiga beenaleeya. Kadib waxay ku tidhi inay beenaley tahay waan ogaan doonaa ee maanta bal igu kalsoono aniga iyadana warayso. Kabacdi wiilkii isagoo aad u xanaaqsan ayuu gurigii iskaga baxay isagoo ku kalsoon shimbirtii oo maalin labaad doonaya inuu ku sii caddeeyo arrinka
oo ay ogaato shimbirtana sheegto xaqiiqada. Kabacdi wiilkii sidiisii la mid ah waxa uu iska tagay shaqadii. Markii uu shaqadii aaday, wiilkii sidii caadada u ahayd waxa uu soo noqday xilligiisii go'naa. Gabadhuna sidiisii la mid ah wiilkii way u yeedhay, laakiin maxay samaysay khiyaamo tii hore ka duwan. Shimbirtii yareed intay xagga sare baca ka saartay ayay waxay dusha kaga furtay biyo ama tuush biyo ah. Kadibna shimbirtii yareed waxay aragtay in ay daboolan tahay oo ay biyana dusha ka socdaan. Shimbirta yari kadib waxay isweydiisay waxa da'aya roob oo wax shanqadho kale ma baxayso. Kabacdi wiilkii ayaa shaqada sidii caadiga ahayd ka soo noqday. Kabacdina wuxuu ku yidhi shimbirey, maxaad war maanta i haysaa? Kabacdi waxay ku tiri shimbirtii, maanta wax wara kuma haya, waayo maanta oo dhan roob ayaa da'ayay ayay ku tiri. Kabacdi intuu xanaaqay ayuu ku yidhi, been baad sheegaysaa, magaalada waan joogay kamana fogeyn guriga wax roobina muu da'ayna, maxaad beenta iigu sheegaysaa? Kadib waxay ku tiri shimbirtii yareed, run baan kuu sheegayaa, roobku waa uu da'ayay oo maanta dhan roob ayaa da'ayay, anna waxa war kama haynin. Kabacdi shimbirtana soo qabtay ayuu yidhi, adiga ayaa khiyaanoolaya. Kadibna kurka ayuu ka gooyay shimbirtii yareed oo saas ayay ku dhimatay. Kadib gabadhii markay aragtay shimbirtii yar oo la dilay ayay inta u timid ku tidhi, baleeg been bay sheegaysay, horena been way u sheegtay. Kabacdi gabadhii aad ayay iskaga farxday inta qolkayga tagtay oo way iska boodboodaysaa maadaama shimbirtii yareed laga dilay. Tan waxay tilmaamaysaa khiyaamada dumarka qaarkood. La soco haddaba qaybta labaad ee sheekada iyo sida gabadhan loo khashifayo. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe-ta noo taabo, aad ayaad u mahadsan tahay.